sameyn maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran channelka galka media iyo sidoo kale barteena Facebook ee galka media waxaan warbixinteena maanta ee galka media diiradda aynu ku saareyna lacagtii ugu badneed oo la siiyay ciidamada Soomaaliya mushaar kordhin loo ballan qaaday iyo waliba shaqaalaha dawladda oo walwal ka qaba doorashada haddaba waa maxay xilligan lacag kordhinta loo sameeyay ciidamada iyo shaqaalaha yaa ka dambeeya qorsho inta in la eg ayay Villa Soomaaliya xilligan u diyaarisay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu soo jeedin lahaa indhaha xilligan ku wada haya arrimaha doorashada haddaba xilligan farxad inta in la eg ayay muujinayaan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda warbixinteena maanta ee galka media ayaynu diiradda ku saari doonaa xogahaasi oo dhameystiran balse marka hore daawadayaal subscribe inoo saara barteena YouTube ee channelka galka media sidoo kale barteena Facebook ee galka media like iyo follow warbixintana u sii share gareeya saaxiibadiina kale si aan farxadda ula qaybsano shaqaalaha ciidamada oo xilligan farxad aad u weyn muujinaya waa tahay haddii aan ku hormaro waxaan markaa xilligan soo baxaya xogo hoose oo sheegaya in labadii habeen ee tagtay lacagtii ugu badneed loo diray shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida xogta mushaar kordhin loo sameeyay ciidamada militariga farxad u soo hooyatay qoysaska ciidamada Soomaaliyeed dalka oo cagta saaray wadadii isku filnaansho buuxda iyo sirta dawladda ee miisaaniyadda ciidanka iyo shaqaalaha haddaba mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad warbixintan u sii share gareysaan saaxiibadiina kale sidoo kalena like aad saartaan muuqaalkan waa hagaag waxa markaa xilligan dawladda Soomaaliya ay bilowday qorshihii ugu dambeeyay ee dalka xilligan horumarka uu ku saarayo gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan markaa bilaabay abaabulkii ugu dambeeyay ee xilligan indhaha loogu soo jeedinayo horumarka dawladda nabad iyo nolol ay ku tallaabsatay afartii sano ee dawladdan uu xukunka dalka uu hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la soo warinayaa inay si wanaagsan uga soo baxday waajibaadka ka saaran xuquuqda ciidamada iyo shaqaalaha dawladda hase yeeshee mid ka mid ah saraakiisha ciidanka oo aan markaasi la hadalnay ayaa galka media waxa uu sheegay sidaan waxaan u dabaaldegaynaa farxad waanu helnay lacagtii dhammaan qoysaskeennii ciidamada way ciidaysanayaan maanta ayuu yiri dhammaan shaqaalaha dawladdana sidaasi si la mid ah ayuu xogta noogu xaqiijiyay xubno kale oo ku dhow madaxtooyada iyo wasaaradda maaliyadda waxa ay sidoo kale inoo sheegeen inuu socdo qorshihii ugu ballaarnaa abad ee mushaar kordhin lagu kordhinayo ciidamada qalabka sida haddaba arrintan maxay dawladda ugu gon leedahay haddii aan dul istaagno saacadihii ugu dambeeyay Villa Soomaaliya waxaa markaa ka soconayay shirar iyo waliba abaabul taas oo la doonayo in xilligan markaa ay noqoto abaabulkii ugu dambeeyay ee doorashada dhankeeda balse waxaa isa soo taraya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligan uu amar culus dul dhigay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan wasiirkeeda Cabdiraxmaan Beyle oo lagu amray in mushaar kordhin uu sameeyo maadaama qasnada dawladda xilligan lacag aad u fara badan ay ku jirto taas oo madaxweynuhu ugu gol leeyahay in shaqaalaha dawladda iyo ciidamadu ay farxaan farxadaasina abid madaxweynuhu uu markaa ka helo sidii uu soo noqon lahaa talada dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilligan markaa waxa uu madaxdii kale ee dalka soo maamuleysay kaga duwan yahay in afartii sano uu joogay xukunka uu iska ilaaliyay xuquuqda ciidamada iyo waliba mushaaraadka dawladda shaqaalaheeda balse waxaa la soo warinayaa in qoysaska ciidamada iyo shaqaalaha dawladda farxaddii ugu badneyd saacadihii aynu ka soo gudubnay gurigooda ay ka jirtay taas oo markaa uga wacan tahay kadib markii dawladda Soomaaliya xilligii tagay ay markaa bilowday qorshayaal kale oo lagu horumarinayo miisaaniyadda ay qaataan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda 25 oo aan markaa ka soo gudubnay bishan ayay bilaabatay lacagta bixinta sida xogtu ay noogu sheegeen qayb badan oo markaa ka tirsan dhinacyada lacagtu ay soo gaartay balse xalay habeenkii ahaa
ayaa qaybtii ugu dambeysay ay lacagtu heleen shaqaalaha iyo weliba ciidamada dowladda. haddaba daawade maxay kula tahay xilligan lacag kordhinta uu samaynayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? sideese kula muuqataa guusha ay xilligan markaa gaartay dowladda nabad iyo nolol? fikirkaaga qaybta hoose ee nagu reeb ee commentiga, warbixintaana u sii sheergaray saaxiibadaada kale si aan maanta farxadda ula qaybsanno ciidamada iyo shaqaalaha dowladda oo farxaddii ugu weyneed wajahaya. balse Soomaaliyey warbixintaana sii gaarsiiya saaxiibadiina kale inagoo mar walba idinkaga mahadcelinayna dhiirigelinta joogtada ahi ee aad nala garab taagan tihiin. mahadsanidin.